Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Saaxiibada sharafta leh soo dhawaada maalin wanaagsan. Videogan saaxiibayaal waxaan ku duubayaa waxa loo yaqaano waxaa jiray inaan la soo wadaagay in aan soo sameyno waxa loo yaqaano IB oo qof walba u ogolaana in FX Primes akoonkiisa uu kala baxo lacagtiisa isla markaa suuqa waxa uu ka shaqaysto wax ka yar hal saac gudahooda. Linkigan hadda ujeediin waa linkiga in la soo share videogan waxaa u duubayaa marka ardad badan waxaa jiro oo qaabka la isku diiwaangeliyo iyo qaababka tirada badan iyo su'aalaha tirada badan ka imaanaya waxaa rabaa inaan ku fududeeyo si qof walba uu u fahmo hadduu ilaahay idmo. Marka waxaa samayn doonaa haddii aad linkiga kusoo dhifatid saddex qayb oo kala qaadi doonaa videogan. qaybta koowaad waxaa ku caddeyn doonaa qof cusub haddii aad tahay oo linkigan aad rabto inaad iska diiwaangelisid qaabkii aad isaga diiwaangelin lahayd. sidoo kale waxaa ku caddeyn doonaa haddii akoon hore oo FX Primes aad lahayd mid cusub inaad samaysatid aad u baahan tahay the same email iyo xogtaadii dhammaystiran waxaa inaad dib ugu samaysatid markaa u baahan tahayne ayadiina waxaa u baahannahay haddana the same way inaan ayadana u sameyno hadduu ilaahay idmo. iyo sidoo kale waxaa rabnaa dad badan oo waxaa jiro akoomadooda incomplete uu yahay sida incomplete-ka looga qaadi lahaa ayadana inaan ku caddeeno. sidoo kale waxaa rabnaa inaan ku caddeeno videogan lacag akoonkaaga hore ee FX Primes kugu jirtay MT4kaaga hore inaa kan cusub akoonkan cusub usoo wareegsatid iyo ugu dambeyn sida screwga lacagta looga baxo. screwga muxuu yahay qaabkuus u shaqeeyaa. screwgu waxa waaye waxaa la dhexmaraya agency oo xawaalad ah. xawaalad waxaa isticmaali doonaa loo yaqaan Omaya. Omaya waxaa jirto dad badan oo ka shakaysan xawaaladaas iyo qaabka u shaqaysato. saaxiibayaal FX Primes waa taqaaniin waa broker weyn oo zaid oo shaqeeyo oo in muddo shaqeynayay midda kale Soomaalida ugu tirada badan ee isticmaasha brokerkan. brokerkan aaminaada intaan la eg haysto ma waxay kula tahay in dad aysan soo hubinin inay platformka kusoo dhex darayaan. taas micnaheedu waxay noqonaysaa maya sababtoo nimankan almost waxay iska ilaalin waxaa loo yaqaan fraudka scammerska dadka lacagaha tuugada ah oo ka dhaca sababtoo sumcaddooday baabi'inaysaa. haddii maanta hal qofood oo FX Primes wax ka sheego uu dhow lacagteediya aana ma helin dhaawac weyn u geysanaysaa. taasoo la macno ah boqolaal qof oo qofkaasi friends la ahaa saaxiib la ahaa ee warka dhageysan jiroo kale inay kasoo guuraan ay noqonaysaa. micnaheedu waxa waa tusaale oo kale anigoo walaalkiina hadda da'din dhaw FX Primes waa tuugo iska ilaaliya maybe inay dhaawac u noqoto ayaga ee dad intiinan qof ee janaalkeena ku xiran oo kale ugu yaraan 30% qof oo 30% oo isticmaali jirta FX Primes inay ka guuraan ay noqonaysaa. marka dhaawac ay noqonaysaa. taas isku soo wada duubna micnaheedu waxay la macno tahay in xawaaladan Omaya loo yaqaano oo very safe ay tahay lagu kalsoon yahay isla markaasna lacagtaadii haddii ay kaa maqnaatana FX Primes kaa haysato haddii lacagtaada ay heshidna FX Primes ka heshay la macno tahay. sidoo kale ayaga waxaa ka taalo lacag dibaaji oo aad iyo aad u tiro badan lacagaha ay bixinayaan lacag ka tiro badan ayaa u taalo oo xawaalada FX Primes ay dhex taalaa oo haddii in case oo ay qalad ay galaan ayaga FX Primes ay kugu xalin doonaan hadduu ilaahay. marka dhow marka screwga isticmaali doona qaabka lacagta ula bixi doono waa arki doonaa laakiin hadda waxaa ka hormari doonaa linkigan sidee isaga diiwaangelinaysaa haddii aad tahay akoon cusub ka soo qaadi doonaa hadduu ilaahay. okay marka linkiga kusoo dhafatid shaashadana ku keenaa hadduu ilaahay. shaashadan maxaa uga baahan inaan ka sameeyo meeshana furaysaa maxaa u baahan tahay akoonkayga individual ah hal qof ahay. okay maxaa magaca ku qoranaa muxuu yahay akoonkaygu magacaan ku qoranaa waxay noqon doontaa liibaan haye hoosa imaanaya nuur good. email addresskaygu maxaa waaye email address cusub aan sameeyey kaasaa rabaa inaan ku sameeyo maadaama akoon cusub uu yahay. emailkiyaa soo qaadaya meeshana ku baasgareynayaa @gmail.com good. haye usernamekaygi muxuu noqonaa marka dad badan waxaa jira usernameka weydiinaya. usernameku waa emailkaaga hadhow usernameka emailkaaga ku noqonaa intee joogaa Soomaaliya good. lambarkaaga gasho ku leeyahay. lambarkayga waxaa gelin doonaa 8 that's my number. password u sameyso kule passwordkaaga waxaa la rabaa inuu noqdo password taf ah qof uu soo dhow isku dayi karin. okay hadda passwordkan u sameysanayaa waa kaasa passwordkaygu hadda waa sameeyey. passwordku waliba waxaa laga rabaa 2 xaraf inaan raaciyo. okay let me wuxuu ku leeyahay your password inuu ahaado 8 xaraf hal xarf weyn ay ku jirto lower case inuu ku jirto numbers inuu ku jiro iyo xarfo inuu ku jiraan oo kale. waxaa sameyn doonaa passwordkan cusub waa idin tusi doonaa hadhowna dib ka bedeli doonaa no problem. tusaale kale waxaa dhihi doonaa dhiidan capital ka dhigay daily aan ka dhigay ama daily profit
okay 123 double slash هي علامة دارب نوع حسب درينا ساين دولار وكله good موجودة بس تكسوا tough معناه ساسا كل رأيروا حرف وين وكجرا حرف ير وكجرا number وكجرا إيش كي وكجرا حرفنا وكجرا علامات وكجرا ساين دولار هذا استعمالنا so بس كي وجدين one daily profit 1 2 3 double slash علامة ساين دولار استعمال good meeshaan labada meel account check aa saari doonaa kadib maxaa u baahannahay register now aa dhihi doonaa whenever aa register now aa dhahno micnaheedu waxay noqon doontaa email automatic in account-kaaga verify garaysid aa u baahnaan doonta hadda qaybtan waxaa u gudbi doona haddaan register now dhaho halkaas waxaa u gudubnay inaan account cusub samaysano good aan dhahana register now wixii ka dambeeya aragna marka waana la gudbiyey so wuxuuna dhihi doonaa marka emailkaaga soo jegray ujeedaa mahadsanid kusoo dhawaa fikir finance si aad registrationkaaga u dhamaystirtid waxaa u baahan tahay inaad emailkaas soo booqatid emailka lagu soo diray verificationka inaad meesha ku tagtid okay meesha marka laba qayb ay noqon doonta hadduu ilaahid account cusubna waa samaysatay sidoo kale qaybtan waxay xalinaysaa dadka loo yaqaano incomplete akoomo badan waxaa jiro incomplete ah oo aan xogtooda weli la dhamaysan see incomplete uga bixi karnaa incomplete waxaa uga bixi karnaa email ay kusoo direen emailkaaga tag verify soo dheh okay aan fiiriy emailka ii soo direen okay waa kana emailki halkan maxay ii dhex yaal fiiriy hadda refresh dhaho fx primes email verification mujeda email verification ka igu cusub okay ku dhufo emailkan maxaa u baahanahay verify your email address emailkaaga verify garay marka verify ku dhufto intuu igeyn doonaa waxaa la kicin doonaa account-kii cusba ee aan soo samaystay marka okay waa kana waxaa lagu dhahay waa lagugu hambaleynayaa inaad isku diiwaangeliso focus promise member area now had one step away ku dhiman kadibna hore usii socon doontaa oo micnaheedu waxaa waaye xogtaadii waxaaga dhammaystiri doontaa dib hadda u gelin doontaa marka okay maxaa u baahanaa hadda marka meeshaan waxaa gelin doonaa meesha deganahay waxaan gelinayaa hoodan haye inta waxaa gedinayaa degmada mogadisho ama wadadeena ama talex inta tusaalka streetka gelino Taleh Road Hodan District good magaaladana waa naqaanaa Mogadisho state province-gan maxaa waa Banaadir let's see Banaadir good zip code-keena 252 date of birth gormee dhalatay okay dhalashadaada ku qora meeshaan waxaa leenahay 95 December 17 معناها طريقة هدول دورشات ماشي قلنا دونتا ويقول لي قف دور سياسة اللي حرر ماتا نووي US citizen ماتا هاي مية محاكا لو بانا انت ايمانينا مارك تريدين نوليج من تيجا employment status كاga qof shaqeey ma tahay qof aan shaqeyn ma tahay self employed ahaan leeyahay aniga ay meelaha ay ka gasho lacagta aragto inaad suuq ku shubtid waxaa leeyahay saving lacag ay haystaa inaad ku shubtaa education level kaaga maxaa waaye high school bachelor waxa adiga markaas tahay waaye haye meeshan waxaa laga gelin doonaa lacagaha bish sanadkii kusoo galo meeqa waaye waxay ka yartaa $50,000 haye net worth-gaaga meeqa waaye 25 ilaa 0 u dhaxaysaa haye halkan maxaa lagu dhahayaa lacagta qorsheynaysa inaad geliso 100 ilaa inta waxay u dhaxaysaa 25,000 sababta u sameynaysid marka maxay tahay trading-ku waxaa u baahanahay inaan sameyno investing good haye marka halka imaatid maxaa lagaaga baahan yahay marka halkan waxaa gelin doontaa passport-kaagii iyo halkan waxaa gelin doontaa hadduu ilaahayd passport-kaaga gelin doontaa ID haysa ID-gaaga gelin doontaa sidoo kale meeshan waxaa gelin doontaa Swift code-kaagii passport-kaagii iyo Swift code-kaagii xogtaan meeshaan gelin doontaa kadibna account type-kaaga halkan ka dooran doontaa haddii aad u baahan tahay ECN haddii aad u baahan tahay okay waxaa ku sheegnay qoraalkii aan soo qorayn waxaan dhahnaa haddii linkigayga isku diiwaangelisid taas wuxuu ku ogolaanaysaa ECN-ka waa taqaanaan haddii aad mastercard-ka lacagta kaga shubanaysid waxaa u baahan tahay inaad ku samaysatid waxa loo yaqaano $500 ugu yar $500 iyo plus ee ku noqonaysa laakiin ECN adoo samaysata waxaa isticmaali doonaa xawaalada oomaya $100 u diri doona $100 kusoo shubi doona anagoo isticmaalayno kadib leverage-keena waxaa ka dhigan doonaa 1 to 500 hadduu ilaahayno currency deposit-kaagan waxaa ka dhigan doontaa USD so waxaa samayn doonaa waxaa soo gelin doonaa passport-keygii iyo waxaa soo gelin doonaa proof residency insha Allah waa isku soo laabanayna kadib
Okay hadda waxa ujeedaan meesha inaan passport soo geliyay halkan waxa ujeedaan inaan soo geliyay waxa loo yaqaan proof residency-geeda oo ah okay saaxiib yaal waxay noo maraysay haddaa xasuustaan in account-kii xogtii in la geliyaa loo baahan yahay qaybtan waxaa uga hadli doonaa dadka incomplete-ka ah dadka aan u dhammaystirnayn oo incomplete-ka usoo saarayo qaabka ay ku xalin lahaayeen incomplete qofka marka usoo saaro waxaa loo baahan yahay inuu halkan tago kadib wuxuu soo saari doonaa meeshan wuxuu ku dhufan doonaa verify my email address emailkaaga fadlan aa ku samaysata tag verify email address kusoo dhufo markaa kusoo dhufatid ugu dambeyn waxaa ku dhihi doonaa continue registration si aad marka u dhammaystirtid meeshas ay ku qorantahay bartankaas waxaa ku dhufan doontaa complete registration complete registration ka ku dhufatid maxaa u baahan tahay marka laba midkood haddii akoonkaagii hore oo u suubisnaa akoon hore oo FX Primes aan lahayd ma u baahanid xog cusub haddii inaad geliso complete kaliya dhihi doontaa laakiin haddaad akoon hore u lahayn oo markii kugu horeysa ay tahay complete registration aad dhihi doontaa kadibna xogta waxaa gelin doontaa Swift code-kaaga bank statement-kaaga waxaa dhinac gelin doontaa haddii uu ilaahay idmo okay aan ku dhufano waxa loo yaqaan complete registration markaa ku dhufano aragna waxa inoo soo baxayo kadib meeshas complete-ka waxay isku bedeli doontaa pending inay noqoto oo ah form inaan sii buuxino formkan waxaa gelin doonaa hadduu ilaahay idmo xogtii dhammaystirneyd meesha degan tahay wixii dhan aan gelinayna marka waa ka luqadda ku hadashid person English Soomaali uu leeyahay FX Primes waa ka dhigan kartaa haddii aad English ku fiicneen ana waxaa ka dhigta Taleex Road Hodan District Banaadir Muqdisho calaamada inuu shaqeynaa laga yaabo okay caadi noogu door 1995 bishii December day waxa waaye 17 good waa kaasa taariikhda hore sanadka in loo hormariyo YYMMDD waatan nowde employment status-kaaga maxaa waaye self employed ahay haye wuxuu ku leeyahay source-ga lacagta meesha ka soo gasho maxaa waaye lacag aad save gareystay waaye education-ka waxbarashada adiga waxaa tahay markaas geli bachelor aniga dhahaa estimate annual income-ka bishii qiyaas ahaan intee kusoo gasho wax ka yar $50,000 ay soo gasho equity-ga hadda haysatay lacagta oo nadwartigaaga meeqa waa 0 ilaa $25,000 u dhaxaysaa hadda intee rabtaa lacagta inaad qiyaasanta inaad ku invest gareyso $100 ilaa $25,000 u dhaxaysaa sababta aad ishaga aad u sameynaysa maxaa waaye waxaan leenahay in investment aan ku samaysana u baahna good halaas markaa soo buuxisid dadka oo akoon hore u lahaayeen waxaa u baahnaa xogtan sida kii hore ee u lahaayeen inay usoo gelgeliyaan kadib ma u baahna ayaga documenti inay geliyaan keliya meeshaan imaan doonaan waxay ku dhufanayaan variable marta mise ECN raba okay leverage-kaagii akoonkaaga hore ka dhigo base currency-gaagana USD submit aa dhehaysaa haddii akoon hore u lahayd oo aad rabtay labadan akoon xogtan ku jirto kan la iskugu waafajiyo laakiin haddaad akoon hore u lahayn fadlan halaas ila faham haddii akoon hore u lahayd qaybtan halaan submit aa dhihi doontaa laakiin akoonkaaga ugu horreeya hadduu yahay kadib halkan waxaa soo gelin doontaa baasaboorkaaga iyo xogtaadii kale ani hadda baasaboorka meesha soo gelinayaa waxaa tagayaa download this my passport waa soo geliyey maxaa u baahan proof residency-ga waa tagaa iyadana waa kana good haye maxaa kaloo liiga baahan bank statement-iga ayadana waa soo gelin doontaa hadduu ilaahay ugu dambeyn markaa formkaa soo dhammaystirtid maxaa dhihi doontaa submit markaa submit dhahdid akoonkaaga wuxuu noqon doonaa sorry jag akoonkaas arno akoonkaaga wuxuu noqon doonaa waxa loo yaqaana pending ayuu noqon doonaa markuu pending noqdo haddii akoon hore u lahayd oo passport aad wax aada gelin oo pending ku noqdo userkaagii hore oo kan ahay iyo userkaaga cusub ii soo dir kadib aniga ku activate gareyna haddii akoon hore aad u lahayn kana kii ku cusbaa u ahay ii soo sheeg inuu pending ka yahay kadibna anaa ku activate gareyna ayadan hadduu ilaahay idmo labada marba hadduu ilaahay idmo okay ECN waa noo yahay kan okay maxaa kaloo naga dhiman unagu haystaa sorry qadka iga cuslaada uma leenayaa let's refresh again in xogtii dib usoo gelin doono laga yaabo inay noqoto okay marka waxaa arkaynaa markii xogtii aa gelinay inuuna leeyahay pending whenever akoonkaaga oo pending noqdo userkaaga ii soo dir hadduu ilaahay idmo akoonkayga pending waaye dheh oo xogtan hadda intaa soo sameeyey hadda waxaa meesha kusoo sharxan haddii ay la fahmi kartaan meeshan hadda waxaa kusoo sharxan in akoonkaaga uu cusub yahay qaabka loo samaysto iyo sidoo kale dadka incomplete u yahay qaabka u dhammaystiri lahaayeen iyo dadka akoon hore u lahaay oo akoon cusub inay samaystaan xogtoodii iyo xogtan lasoo wareejinay inay marka u baahan qaabkay u sameyn doonaan hadduu ilaahay idmo marka ayadana saasaa ka dhigi doonaa insha allahu tacaala kadib waxaa ku xijinaynaa marka akoon MT4 to MT4 sida lasugu isticmaalo marka okay waxaa raba haddana inaan fiirino saaxiib akoonkii aan sameynay aan hubino in xogtiisii wixiisa dhammaystirnaa waa ujeediin passwordkii emailkii aan sameeyey oo saxdi ahaa
meeshan waxaa gali doonaa sorry waxaa loo yaqaana trader loginka markaa galnana aan fiirino xogtii aan gelinay in akoonka in la active gareeyo haddii akoonka xogtiisa dhammaystiran si saxan ah u gelisid haddii akoonka si xogtiisa si saxan ah u gelisid hadduu ilaahay daqiiq wax badan makaa qaadan doonto 1 hour kaa qaadan doonta fadlan hubi xogta inaad si saxan u gelisid haddii uu ilaahay idmo tanna passwordkan waa taqaani haddaa xasuusin waa daily profit oo ka eedi capital ahay $, aa idin tuso inuu asigii yahay sa u hubisaan daily profit $123 login aan dhahno aan fiirin haddii akoonkeena la activate gareeyey iyo haddii aan la activate gareynin sidoo kale xogtoo dhammaystiran iyo dokumentiyadaada haddii akoonkaa ku cusbaay haddii xogtaada si dhammaystiran aa u gelisay 200% 1 hour kaa qaadan doonta haddii ilaahay idmo ilaa 2 hour ilaa 3 hour waa haddii ugu badato hadda meeshan waxaa ujeedin in akoonkeygii liibaan nuur daarkii hortin kusoo sameeyey inuu active yahay sidoo kale waxaa loo yaqaano ECN uu yahay waa kaas xogtiisa dhammaystiran akoonkiina waa lii activate gareeyey good hadda waxaa u baahanahay keliya waxaa u baahanahay lacag inaan ku shubto lacag haddaa ku shubto inaan u baahana marka laba mid samayn doona hadduu ilaahay idmo haddii aa u baahan tahay lacagtaada in waxa loo yaqaano degdeg aa ku heshid isticmaal fadlan inaa isticmaasho waxa loo yaqaano screwga oo xawaaladan omaya isticmaali doontaa haddii ilaahay idmo qofan akoonka omaya ayaga marka waxay sameeyaan lacagta kaa qaadi maayaan akoona lacagta ugu soo shubi doontaa kadib ayaga ay lacagta akoonka ugu soo shubi doono kadib markii lacagta kugu shubaan 10 minute wax ka yar kadibna waa aqbali doontaa haddii uu ilaahay idmo marka insha allahu tacaala in screwgaas ugu shubanaa rajeynaynaa sidoo kale screw marka ugu shubto waxay ku fiican tahay dadka ECN rabo oo $100 haysto waxa kaliya linkiga kaliya ku samaysan karaan ayaga u soo maray omaya $100 akoonkooda u shubaysan isla markii waa idinkugu soo shubi doonaan sidoo kale commissionkooda zaid u yaryahay sidoo mastercardka lacagta laga qaadanayo kala laga qaadanayo halka mastercardka $3 ahayd meesha ayaga $2 kaliya ka qaadan doonaan hadhow withdrawgana $4 ka qaadanaya $100 hadda soo baxsatid $40 ka qaadanayaan wax hal sac ka yarna kugu siin doonaan haddii ilaad marka hadda halkan waxaan ku ogaanay in akoonkeena active laga dhigay waxaa rabaa marka inaan kusii daro haddii ilaahay idmo akoonkeygan hadda active ka ah oo dokumentiyadii xogta dhammaystiran aa geliyey waxaa rabaa in akoon kale hadhow lisugu ka activate garay akoonka hadda active-ka iyo mid kale active hadda cusub oo linkigii inaan ku sameeyo dadka micnaha akoon hore FX Primes ugu lahay ee rabaan inay akoonkan linkigan ku samaystaan kadibna ay usoo guuraan linkigan ayagoo isla same xog iyo wax dhan isticmaalaya qaabkay u samayn lahayd ilaan okay akoonkii hore individual noo ah hadda xasuustaan magacii noogu qornaa isla same aan ka dhigana liibaan haye hoos imaanayna noorkiina sidayna u qoranay email addresskii hore waxaan rabaa inaan intuso trig yar oo ah emailkan hadda igama aqbalayo calaamadaas registerka oo iga cancelanta fiirso triga isticmaali doono inaan ku tusaaro okay lambarkan isla lambarkii hore isticmaali doonta haddii ay isticmaalno kale isla xogtii hore ku buuxinay haddii ilaahay isla lambarkii hore geliyay passwordkii hore iyo kan kala duw bas kan kaliya labada password kala duw kan passwordkiisa cusub maxaa ka dhigi doonaa ila fiiriya waxaa ka dhigi doonaa daily profit waxaa ka dhigi doonaa waxa loo yaqaan double/ka soo hormari 1 2 3 iyo $1 calaamada dambeysi kan dhaxda soo hormari check markaas hadda registerka iyo shaqeynaa sababta emailkan hore ugu sameeyay triga isticmaala fiirso aa ku daraya hoosa imaanaya sorry ka imaado akoonka maxay noqday registerka active ay noqoto ku laabo ta ka soo tir soo laabo register dheh trigaas isticmaali doontaa hadduu ilaahidmo waa kaas waa gudbis mujeda the same email inaa wax ku samaysto marka u baahanta maxaa sameeyey ku daray waa soo laabta hadalkii sidii ka sameeyey kadibna email oo isoo diray emailkeena aan jaagaraysano akoonkeeni halkan aan ku dhufano aaway yes waa kana akoonkan aan kicina gmailkiisa gmail aan ku dhufano linkiga ma noo soo direen akoonka cusub aan fiirino si aan u activate gareyno ayadana waa kaasa mujeda new email verification fadlan haddii akoonkaaga incomplete uu ka yahay email verification bas laga haystaa email verify garay kusoo dhufo kadibna wuxuu ku keeni doonaa inaad xogtiisii dhammaystirtid oo akoonkii cusbaa marka maxaa u baahanaa marka akoonkeyga hore oo active-kii ahay halkan waa ujeedaan sorry halkan waxaa ujeedaan liibaan nuur xogtii iyo qaabka usoo geliyey isla emailkaana waxaa ku sameeyey hadda akoon cusub registration kan continue dhihi doonaa halkan wixii daa geliyo gelin doona taleex road banaadir wixii dhan intana taariikhdii xogtii u gelin doona documenti ma gelin dooni maadaama akoon active ah haysto documenti ma gelin doona akoonkan cusub iyo akoonkan userkan cusub iyo waxa isku hadhow isku ka activate gareena userkan labadan user ayaa isku ka activate gareen doona marka si labada user isku ka activate gareeyo
waxa u baahan tahay haduu ilaa musiib xog ina isticmaalno hay hadaa maxaa isticmaala daa xustaan employee status kan maxay ahayd self employed ina ahayd inta lacagta nooga imaata safe ina nooga imahayd bachelor ay ahayd halkan income keyga maxaa waaye halkan 25 kuna noo doorneed halkan maxaa ka dhiganay 125 maxaa u sameynayna kan maxay investment intaas xogtaas markaa soo geliyo kadib halkan maxaa ka dhigan doonaa ECN halkan leverage keyga 1 to 500 currency base keyga USD okay document ma ina geliyo u baahana hadii account hor u lahaa active account hor waa kana iyo active iyo somaha account document ina u geliyo ma u baahana no way submit kali ii soo dheh marka submit dhahad oo pending sorry date ka hamar gelin aan saxno date kii hore oo account keyga aan gelinayo kala gelin doona 95 sorry yes here 95 December 17 account-kii hore account-kan isku xoga galiye kadibna submit dhihi doona marka submit dhaho meesha maxay soo qoraysaa pending ma waxa u baahan documenti ina galiyo maya account hore active lahayd documenti ma u baahan waxa ii soo diri doontaa user-kaas iyo account-kaaga cusub hadda incomplete ka noqday pending ka noqday user-kiisa kadib aniga ku activate gareyn doono hadii uu ilaahaymo intaas waxa ku soo gabagabeynaya waxa loo yaqaano videogii aan ku soo duubeen oo ah account cusub sida loo sameysto account hore hadda u lahayd sida hadda mar labaad loo sameysto adoo linkiga isticmaalaya sida incomplete ka saga qaado iyo sidoo kale hadda wax kaliya noo dhiman MT4 to MT4 iyo waxa sameyn doona screw-ga anoo lacag kula bixi doono video yar clip ayadana ku sameyn doona hadii ilaahay waxa rajeynaa inaa wada fahanteen haddii aad fahmin video dhowr mar ku cesho sidoo kale saaxiibada sharafta leh ee akoomada incomplete ka ah way tiro badan yihiin akoonada incomplete ka dhameystirtaan haddii akoonkaagii oo pending ka yahayna akoon hore u lahayd ii sheeg labada user ii soo dir haddii aad hore akoon u lahaydna waxa ku qasbantaa maadaama pending ka yahay waxa ku qasbantaa in aad haysatid swift code-kaaga bank statement-kaaga iyo passport-kaaga xogtaada dhameystiran si saxan ina u gelisay ila soo xiriir insha Allah taala kadib ana ka caawin doono kadibna lacagtaas sidaas ku shaqeysan doontaa balanteena waa in hadduu ilaahay 10 minute aku trade gareeno waxa loo yaqaano inta dalabka maqaayada noo sii maqan yahay in lacagta withdraw inta dalbano orderkii aku sii gudbin insha Allah taala soo dhawaada saaxiibayaal